السلام عليكم سوداء يوتيوب channel كيغا maanta garabkayga waxa fadhiya aabo oo namarti ah magacaaga asxaabta asbaabaya ina caasha abidaan sheegay okay السلام عليكم اصحابتا عاشا aad baan idin salaamaya عاشا laakiin ima yaqaan maxaa lagu yaqaan ايش عاشا ايش انا كمان بحال عاشا كمان والله magaca عائشة عاشا طبعا اوكي عائشة عبد العزيز مصطفى ها لكن ايش هو ايش احتوش magac jiradii asbaa ايش عزيز عبد العزيز حتى وقا بدلني ها مر ما كايسته لا لا تابعت انا عبد العزيز بالله عبد العزيز محمود علي بالله لكن magaalada عزيزنا ku maro Kenya ما magac lagu waan qalay adika inta qarashka bixid aan dib u qaldama ku sameeyno diyaar wallahi diyaar wada shaa hadi gabar kale oo dhalay ayana magac ka cawaaday ayada ila maartay magaca ka bedelo maartay tir magacaygaas ma doonaya raga loo baxshaabay tir magacyo waxa jira raga loo baxsho dumarkana loo baxsho sida shukri oo kale iyo حنو ولك يا حمد او كلي لكن تسمع magac حتى شكري ولا انا شكري baa jira afaatee waxa jira magacyo waxa jira sida hadda magac hadda Allah anigu iska waxay leeyahay anigu magac ku waqalay waa Caasha laakiin Caasha ma Aisha beedaba way waxay dhada Aisha waa sama soo laakiin Caasha ma gilnaayo maxaa Caasha waxa ku daawo garan maayo gabadhi kale ayada ka yareeyay magaceedu way diiday waxa tirayga bedelaan wala xaq ayada waan qafay samanka lagu jir wala kibri mugtaa samanka lagu jir wala kibri wallahi ma yurub dadku way kibrisay yurub kaliya wala yurub kaliya wadankii xataa dadka magacay waa laga bedelo يا لا يبيع واحد يا ما كان ضدك اصحاب طارق اسبرو انا معي وحال الى عبد العزيز محمود علي بالله عبد العزيز محمود علي جبريل بالله هم يعلنها عبد العزيز بورنا لها ابا بورنا اللي جري انا نفس سؤال وجعلها ها انا waxaan ku dhashay igu buurna ma ogin waxa buurna waa dhacday nay wallahi oo ku fara waa yar xalaqa marka Abd Aziz buurna wallahi ma caam dadkan jooga maartay iskaleeyay yurub kan yurub kan wallahi ha ma ogolo bismillah ku fara kullee أنا عبد العزيز بورنا لها waxaan ka soo jeedaa kalalka Soomaalida araya ogaadeenayaan ka soo jeedaa ogaadeenayaan ku dhashay magaalada Qabri Dahar leeyahay ayaan ku dhashay gobolka ogaadeenaya ayaan ku dhashay waxaan ku dhashay magaalada Qabri Dahar leeyahay horankaaga sheekay horad iga sheekaysay waa si fiican Caasha aan sheegay horta markay dhalatay isku bar wala magacaas ku diiday أرني مايو إلا وقلت أصلاً magacaas Soomaalida tadawala sana marka asoo dhigto qolka ilaa gabadhi ka bedel magaci marka salaamta dadka committee weydiinayna ama wax ku wada Caasho waa ma fahantay xilliga dhalatayna hadda magaca ka cararaysi waxana sameynayso anu barwaaqada soo martay wax la malayn kara ma ah xilliga dhalatay adigu dunka xasuus gaar horta dadkeenii hore waxa jeclaayeen wiilasha jeclaayeen moogta oo in wiilasha marka ilaa amarkiis gabadh ay dhalatay anugu waxaan galay barwaaqo aan soo koobi karin oo deeqaanada aan arko ilaahiyan ah oo baa ii furmay waan xasuustaa adoo yar oo saacaga balaynaysa lisa oo tiifar ayaa labada cad waxa ka tuur jirtay waxa dalkii aad moodo caano maartay lisa xumbada aad moodo maxaa laga wadaa marka taas dawaa barwaaqo maliyano basho markaas aad maxaa ku leeyahay ilaahay baan ku dhaartay anu dir dhamaan deganaa markaas oo tuuban markaysay marka dadku kale waxa dhigi jireen qabla wala ma jireen dadkeenii hore inta badan oo maartay wiilashii aad u jeclaan jireen wala hadda laakiin wali waa lagu dhimay ma waxa waa hadda gabdhii baa ka ranaado ka hadda gabdhii wiilasha daasha hadda marka dadka barwaaqada aan ku sheegay si toos ah arkay qaanado ilaahiyan oo rabbaana ay saas oo dhigi ka shaqada ku soo waayay waxa dhacday waxa la hortulo hadda ku dhalato loo baxaa maartay ya gabar labaad baa ilaad ma sha Allah qaanado kale oo aan caadi inaba ahayn yasa ugu furmay waa taajir markii gabadhii ku xigtay Aisha oo hilaal ay baaqsay ayada wadatay markaas waqtiga tuu saddexaad hadda maxaa dhici doona khatra dug soo siis kaba daran la ilaaha illa Allah waxaan ku leeyahay khalad aan caadi ahayn marka hooyadii loo yar waxay isleedahay ama ninkan uu ka tagaa oo gabdhaha badan kaaga tagaa moogtay markii maxay dhashayna waxa la dhihi baxadii ba dhashay marka gabdhaha laga boodaya moogtay wallahi waa dambi laakiin gabdhaha waa raaxo waa barwaaqo marka waxa la yiraahdaa Soomaalida waxa dumar badan fas amsana jirto ma dumarku waa barwaaqo weeyaan inkastoo Soomaalida waxa dhigi jireen wiilashu markay dhashaan wiilashu waa kuliyiin baa dhigi jiray horta saddexda gabdhood baa isku xigay saddexda gabdhood waxa ay raaco igu xigay wiil baa igu xigay halkan kula soo galo aad leeyahay aad kana lagu arkay kana lagu arkay bika aad leeyahay soo aad هذا واكر هذا هو تقنين هذا بقفك أفراد أصلا صح هذا ما كنا شيء ده قدر إلهي وسكتشنا وياك لك على
كيف وين هذا الطفل saddex dhaqaqa يا saddex صدح بالواقع هاي مرك أدي نبطي إلى أمريكا إذا قدر أنا واحد موت ده يبقى أنا واحد نيجي ضدك أنا قصدي واحد مرت أنا مسريك قاضي ما ولا قاضي عرفت كذا وحوا سي الله بيجيك على جيك بس وحل الشيء خير ما ذا هنا لك خير بعد هو يدي بحكي له وحل الشيء قلت صح حاولت سقط يا أبشرك يا ورا قلت له ما شيء قلت طب حبيبي أكبر من راسه كلام ويقرأك على أنا هني شري حوالي أكل شقيرية تلفونية إنترنتية بدون هاي سوي ولا يقرأك على فور أنا تقول كان كل شيء وقت إلا نزلت أنت قلت ترتي نزلت قف في قرنا قرنا عدي سوي مركز أكيد إلا هذا يروح يوصل ترتي باش صح marka niyo aanu taariikhnimada badan baa leeyahay okay aad su'aal anaga ku weydiinayna okay ani aadan yaa sidii karta u dhib badnay ma xagga dhibka aadan dhib loo ma ahayn baa ma dhib badnay ba adina ma dhib badnay laakiin xogaa tirin jirtay hadda ani carruurteeda ilaahay maskilada aan ugu maleeyahay carruurtooda waa 13 weey صح ما شاء الله اوكي 13 kaas sagaal waa isku baho waa bahan caashi iyo bahna waxa weeyaan waa bah kale oo ayagana waxa weeye waa afar weeyaan 13 ka waa 10 gabdhood iyo waxa weeye saddex wiil ruhantii cid aan dhib kala kulmay ma jirto qalqaal ilmaha qalqaal uu iska jiraa ilmo kugu dhib badan qalqaal ma mutaas gabadha leeyahay qalqaal waa qalqaal way jirtaa kuwa kale yaa dhib badan qalqaal wax dhib hata loo kala kula qalqaal wax la yiraahdo ayaa jirta qalqaal wax qofka firfircoon waaye aadan abba jecel baa la dhihi jiray ninkaan soo socdaalkaan dhabtu soo fadhiisan jiray ya marka horta taariikho badan baad soo marteen taariikhaha qaarka aan iloobi karin waxaa kamid kuwa iloobi karin waxaa kamid ah maalmaha kamid ah oo barandadii gurigii adeegsanay fadhiya oo iska qayilaya oo koob shaahana ii yaallo ayaa wada aragtay Itoobiya shinnida iska badan ayaa shinni baa dhashay shinnida dhex gashay khatro yar baa soo oroday شاهي بس أسرع وايد حتى عاقة أي شيء أي كقريت إربطي كسر إلى كسر عاقة أكيد واحد تراون عطل قوم ما عارف واسير سبق أنت تاويسي ما كنت نعوش لي لا قطع ولا قطع أنا أكسر ما كسيدي تاريخها تاريخها كل شيء وأنا حسوسته ولي جبنا هالمرة دي حسوسته أضيع أنا صوتك كنت ولا جالس ولي جب هالمرة بس إذا ما حسيت ما كان اللي أنت قالوا حاسة بس دمي يا سبحان الله وش كده أنا بشيء كريه أنا وح مالاني ما كان أتشيلش وحاسة ما سونيه بالحرت سونيها صارت واحد منهم سونيها مرة تلحق ما صوب حنب اللي ولي وايرق بيتس كره الباص الصوالع برما إلى محو طلقي طبيشن يوحن جسك صور دعية إنك كواقبته صح وحسب ما قص بقاتي أنت جري أنت وجري أنا أول بقاب درب الداير هو خلط صمة خلط صمة هذا اللي حكى عنه ولي يدي له والله كذا شو غراء شيء لكم نوع محلمين وحب مبغش يا سو بقولك قفتن كلها هكا صدف اللي هاي maxaan ku lahaay bushra ma qaada bushra wallahi bushra waxa sameeyay taqaala ha soo dhaweey kala bushra ilaa uu ka dhacay way diidana ka rabay way diiday bushra waxa ugu sameysay maalin ba mobilka iga lumay mobilkii ugu raadi mobilkii meel uu galay ayaan garaway isku soo baa galay kaado galay waqti waxa aad godka soo isku soo وحال وفركانة ماشي كسر الحيرة ماشي بقول كيف أكون شنو بيجي كده